الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي كنتونات هي كتاب كيني حكم وفوائد من روايع الإمام ابن القيم رحمه الله كمال الإنسان sheekhu halkan wuxuu ku sheegayaa macluuma ciwaan looga dhigay bini aadamka dhammaystirkooda yacni waxa qofkas goorma la odhan karaa ruuxani waa ruux dhammaystiran ama waa ruux wanaag la siiyey wuxuu uri ibnulqayim wa kamaalu kulli insaanin qof kasta kamaalkiisu wuxuu ku jiraa inamaa yatimu bihaadayni annawcayn laba arrimood ayuu qofka kamaalkiisu ku jiraa min himmatin tusayiruhu wa turaqiih wa cilmun yubasiruhu wa yahdiih laba arrimood oo aada u cajab badan weeyaan qofku wuxuu ku heli karaa dhammaystir iyo meel fiican inuu joogo cibaadaysanayo oo diintan ku toosani waxay noqonay inuu ilaahay siiyo himma waa han sare kaasoo socodsiiya qofka waxa socodsiiya waa inaga hore uga soo sheekeynay alhima alcaaliya waa hankiisa ayaa socodsiiya oo waxa la yidhaha tarqiya iyo sarraynna ku xambaaro meel kore inuu ruuxu sii gaadho uu marba jaranjaro sii koro waxa keenaya waa himad sare arrinta kalena waa cilmun yubasiruhu wa yahdiih in ilaahay qofka uu baro cilmi tusinaya dariiqa wanaagsan waddada wanaagsan hoggaan u noqda gacanta qabta oo hanuuniya inuu ilaahay siiyo marka waxaa la cilmun oo ay ku dhacayo basiiradu cilmi bay ku timaadaa iyo wax aragtidu inuu qofku waxa fiican iyo waxun kala garto cilmi bay ku yimaadaan wayatadixu bihi dariiqu lhidaaya waxaana cilmiga ugu waadix noqdo ugu ruuxu uu ku arkaa waddada dariiqa ama waddadii hidaayada iyo hanuunka ayuu ku arkayaa qofkuna ma gaadhayo cizi iyo sharaf haddii uu daciif himadiisu ay tahay ay mid iska qabo oo iska jiif uu iska raba ay tahay qofku meel fiican ma gaadha ayaa la yidhaahdaa marka waxa lagu gaadhaayey waa labada arrimood weeyaan waxa kamaalka qofku ku imaanaya wanaagiisuna waa inuu han sare oo kor u socdana leeyahay waana inuu cilmi isaguna gacanta qabto meesha fiican la aadana uu qofku haysto taasuu ku gaari karaa wanaaggii allah subxaanahu wa tacaala ayib macluumo kale ayaa sheekhu wuxuu leeyahay oo iyadana looga ciwaan dhigay istidraaju lbidac qofku hadduu bidcada uu ku sii socdo oo uu noqdo un qof bidcadiisu badan tahay waxaa la yidhaha faina albidaca tastadriju bisagiiriha ilaa kabiiriha xataa yansalikha saaxibuha min addiin walu fiirso yacni bidcadu istidraajku waxa weeye inaad shayga kusii socoto oo lagu tigaajiyo oo aad marba mid un usii gudubto waxay kuu dhiibaysaa markaa dambe kabiira oo midda waaweyn baad usii gudbaysaa ilaa marka u dambaysana qofku xataa yansalikha saaxibuha min addiin qofka bidcada daa'imayey marka u dambaysa diinta uu ka dhex baxaa ogow diinta waa looga dhex baxaa kamaa tansalikhu shacratu min alcajiin ama tunsallu shacratu min alcajiin sida looga saaro ashacra yacni tinta cajiinka markii la qoosho iyo waxyaabahan dee waxyaabaha qoyan markii laga dhex saarayo timaha saa looga dhex qabto sidaa looga dhex saaro ayay diintana qofkaas uga dhex baxayay ibnuqayim raximahullah wuxuu yidhi albidca bidcadu sideedaba waxaa la waa bariidulkufr gaalnimada boostada haddii warqada laguu soo dhigo aday kuu imanayaan gurigaagay kugu iman soomaa marka bidcadu waa bariidkii gaalnimada iyo waddadii ku geynaysa weeyaan bidcadu qofka waxay ka fogeysaa sunnada inuu ku dhaqmo bidcada waxaa la yidhahdaa boos kasta oo bidca degan tahay sunna ayaa halkaas laga zuuliyey ogow haddaad aragto qof bidco samayn bidcadu way badan tahay way tiro badan tahay bidcooyinka qofka ku dhaqmeed aragtay waxa meesha laga qaaday sunno ayaa halkaa la dhaafiyey albidca waxaa la yidhaahdaa haddii ay tahay islaamka mid burinaysa tunaaqidu lislaam haddii ay keensanayso islaamkii oo la dhaawacayo
waana waxay noqonaysaa bidca mukafira oo gaalnimo ayay keenaysaa taasi. qofku haba isu arkay inuu isagu waxyaaba xuduudu dunya iyo wax kale laakiin waxay noqonaysaa bidcadaasi gaalnimo ayay qofka u siyaadinaysaa. marka waxay noqonaysaa bidcadu waa shay aad iyo aad u dhib badan, waa shay qofku iska sahlado, waxyaabaha laga go-ana ma ah. dadkan hadda bulshadeennan tirada badan ee waxyaabaha xunxunka iska samaynayad aragteen oo aan loo fiirsanaynin, oo markii nin sheekha ka hadlo diinta ilaahay baa war waxaa laga daaya la yidhaahdana ma haddaa la keenay waxaas, ma haddaa culimadayadii hore waxaan laga sheegayaa, ma haddaa la rabaa inaa anaga ka nalaga zuuriyo oo nalaga daayo. marka halkaasuu qof ka baxaya, marka bulshadii inuu kiciyo oo dadkii wax magaradkaa iyo haweenkii iyo fulaan iyo ukiyo nabigii baa la caayay kanaa la sameeyey, meel kalaa marka warkii loo raraya. marka bidcadu waa waxyaabaha qofka hadday gacanta ku dhigto uusan si sahla uga tegin bay ka mid tahay. ilaahay subxaanahu watacaala hayna toosiyo, dad sunnadiisa ku toosan, kitaabka alle iyo sunnadiisana allah inaga dhigo. jazakum allahu khayr baraka.